aadan garanaynin sababta aad waxa u bilaabayso haddaba number 1 thing soo raba inaan kuu sheego waxa weeye ha bilaabin ujeedada ugu farada badan dadku intooda badan ma garanayaan sababta ay waxa u sameynayaan maadaama ay ku dayasho ama ay tahay xiiso markii ay dhexda marayso xanuunka qofka uu gaaro waxa suurtagal noqonaysa inuu dib uga haro number 2 in aad garan karto waxa aan bilaabayo challenge ba iga imaanay luqad ingiriis baan baranaya weight baan rabaa inaan loos gareeyo business baan rabaa inaan bilaabo jaamacad baan dhigan doonaa waxbaan bilaabaya waxa aan bilaabayna ma ahan wax biyo oo la cabayo culays baa ka imaan doona waxaan u baahanahay caawin in aan helo ama waxaan u baahanahay support system in aan helo waxaan u baahanahay dad aan ila haraynin ee igu caawinaya ama igu helbi gareynaya inaan buurta koro oo aan kor u kaco inta badan dadka ku yaqaanay ma garan karaan garaadkaaga iyo qiimaha aad leedahay waxaad u baahan tahay inaad is xasuusiso oo aad dhahdo yaan u baahanahay inuu noqdo support dadka kuugu dhow ayagoo aysan xumaan ka ahayn waxaa suurtagal waa inay u arkaan inay xanuun kugu tahay oo aysan kugu daawan karin buurta iyo dalcadda aad korayso laakiin haddaadan xanuunsanin oo aadan dareemin xanaaq iyo nerve iyo challenge aad dareemin noloshaada isbedel ma sameynayso so waxaad u baahan tahay support system oo kugu caawinayo oo ku dhahaya dhiigga iyo cayga iyo cabsida iyo cabaadka iska ilaaliya riraga haddaad tahay ama gabar fiican aad tahay goolka aad rabto inaad faranto ama buurta aad rabto inaad korto isku day